Facebooka lacag ma laga sameeyaa su'aashani aad bay ugu badan tahay marka message-yada aan eegayo oo aan tirinayo kala baro asxaab fara badan ayaa su'aashani soo weydiisa ma aaminsan tahay application-ka heer kugu jira in noloshaada dhan bedeli doono aniga ayaa ku leh haddii ay hobbigaaga tahay way bedeli doontaa intiina barnaamijkan u gudagelin waxaan ka codsan lahaa inaad nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay bogeynan oo like iyo follow tiro sidoo kale haddii aad nagala socoto dhanka YouTube subscribe waxaa ilaawi saxibeyso share gareeyo programkan gaarsiiya asxaab fara badan oo aniga ila mid ah oo jeclaysan lahaa inay halkan u noqoto hoyga ay noloshooda iyo waxa weeyaan wax kasto ay u baahdaan ay ku maareyn karaan share gareeyo oo gaarsiiya asxaab fara badan oo rahaati ka cabanaysa shaqo la'aan iyadoo ay tani taalo amaba ay haystaan Facebook wuxuu ka mid yahay application-nada la isticmaalo social media sida YouTube oo kale TikTok oo kale Instagram-ka iyo sidoo kale Facebook-na waa aaladda ugu weyn ee waxa weeyaan bara bulsho lagu xiriiro yacni YouTube isagu laguma xiriiro waxa weeyaan isagu waa just waxa laga daawadaa muuqaalada laakiin meesha ugu weyn ee chatting-ka laga sameeyo ee bulshadu ku xidhiidho waa waxa weeyaan Facebook marka waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay application-nada dhaqaale fara badan ee dhalinyar fara badan ka sameeyeen soo kale noloshooda ku bedeleen haddaan tusaale yar dhaweysiiyo ninaan aad u taageero marka laga yimaado diintiisa ma faragelina laakiin waxaan taageeraa sida kale uu u maareeyay noloshiisa waxa weeyaan ninka loo yaqaano Nas Daily inaad soo daawatay aan kugula talin lahaa run ahaantii tan waxay bedelaysaa hab fikirkaaga iyo qaabkaad u arkaysay inaan idinka waramo in Facebook laga sameeyo lacag ka badan tan YouTube-ka laga sameeyo YouTube-ka lacag ka badan mid ka badan ta YouTube-ka laga sameeyo ayaa Facebook laga sameeyaa that's why baan YouTube-ka u nacebahay waan u jecelahay Facebook haddaan soo gudgalo barnaamijkeena maanta Facebook-ka lacag ma laga sameeyaa waa laga sameeyaa lacag fara badan oo ka badan ta YouTube-ka laga sameeyo ayaa laga sameeyaa laakiin ma ahan wax iska fudud walaal hooyo qaado ma ahan hooyo qaado haddii ahaan lahayd cid kasta way iska soo gali lahayd cid kastana dhaqaale fara badan ka sameyn lahayd cid kastana millionaire bay noqon lahayd laakiin waa wax kaaga baahan shaqo joogto ah waa wax kaaga baahan dadaal joogto ah waa wax kaaga baahan qiimeyn iyo daba joog joogto ah runtii laakiin waxa aan ku balan qaadayaa haddii aad ka mid noqoto tirada yar ee dhaqaalaha ka sameysay Facebook inaad aad u madax banaanaan doonto oo aad heli doonto fursadihii noloshaada aad raadin jirtay ma aaminsan tahay application-ka heer kugu jira in noloshaada dhan bedeli doono aniga ayaa ku leh haddii ay hobbigaaga tahay way bedeli doontaa qofku wuxuu samaystaa Facebook page inkastoo profile-ka imika lagu soo diray laakiin Facebook page ayuu qofku samaystaa macnaha haddii aad business leedahay Facebook page haddii aad content creator tahayna Facebook page aniga page-kayga waxay ku qoran Cabdishakuur Xarbi sidaas la mid ah adiguna magacaaga oo kale haddii aad content creator personal content creator noqoto waxaad bilaabi doontaa content-ka aad rabto inaad abuurto ama niche-kaaga ama waxa weeyaan meesha aad rabto inaad focus garayso for example kale aniga waxaan ahay content creator focus creating motivation-ka inspiration-ka iyo wax kasta oo aan u arkay inay faa'iido tahay ama inspiration aan ka helino sidoo kale waxa haddii aad tahay qof xagga ciyaaraha ku wacan oo kale dhankaaga niche-kaaga wuxuu noqon karaa ciyaaraha haddaad ku wacan tahay waxbarashada oo kale niche-kaaga education buu noqon karaa haddii aad ku wacan tahay yacni caafimaadka niche-kaaga caafimaadku noqon karaa waxaad dejin doontaa schedule aad ugu talagashay inaad muuqaalada ku saabsan garayso si joogto ah runtii meeshan kama shaahaysid waxay la mid tahay shaqaad subax kasta ku soo kacayso kadibna aad daily life-kaaga 8 hours aad shaqeynayso kadibna waxa weeyaan aad ka fikirayso bari subaxii qarshaha kale waxa weeyaan waa shaqo caadi ah ma ahan wax iska ka siiray waxa weeyaan markaad bilowga tahay laakiin part time bay ku noqon kartaa aniga for example ka part time ka tahay full time baan ahay oo meel baa ka shaqeeya marka part time baad ka dhigan kartaa waxa weeyaan adiga shaqooyinkaagii waxbarashadaadii arrimahaagii kala wata aad part time ka dhigi kartaa waxa weeyaan 2 saacadood 3 saacadood waqtigaaga intii aad ku lumi lahayd waxyaabo malayacniya waxaad uga faa'iideysan kartaa in aad ka faa'iideysto business-kan oo aad waxa weeyaan si ay noloshaada iyo mustaqbalkaaga isbedel aad uga dareentid inta marka aad samayso kadib waxaad isku dayaysaa markaa inaad buuxiso shuruudaha lagaaga baahan yahay si monetization-ka lagugu furo monetization-ka waxaa jira shuruudo lagaaga baahan yahay oo ka mid tahay 10,000 followers inaad gaadho 10,000 followers inaad gaadho inta daawashada ee muuqaaladaada labadii bilood ugu dambeysay ama 60 days-kii ugu dambeeyay ay noqoto 600,000 sidoo kalena active videos-kaagii bishii ugu dambeysay aad haysatay active videos inta marka aad ka soo dhamaato
waxaad u baahanaysaa markaa inaad akoonka setup garayso oo waxa weeye setupkii lagu siteenayaa sidoo kale waxaa jira InStream Ads waxaa jira qaabab fara badan markaa dhaqaalaha laga sameeyo videogan aad iminka daawanayso waxa weeyaan InStream Ads waxa loo yaqaano sidoo kale subscriptions content brand sidoo kale waxaa jira live liftiisa marka la galo dhaqaalaha laga sameeyo hadii monetize qofku ugu furan yihiin sidoo kale waxaa jira giftiyo waxa weeyaan loogu talagalay stars xagga hoose ay ku qoran tahay laakiin kaasi just waxa weeyaan gift ahaan qofku bixiya maaha wax dhaqaalaha oo si joogto ah qofku wax uga sameyn karo monetization marka inta lagu aqbalo waxaa jira waxyaabo digniino ah oo ay kamid tahay oo ah inaad copyright iska ilaaliso Facebook wuxuu aad u qiimeeyaa content creator-ka ama qofka waxa weeyaan content creation-ka leh isku day in waxa leedahay markasta la timaado laakiin copy and paste upload and download inaad ku shaqeyso kaagama soconayso one day-na maalmaha kamidana copyright ba lagu qaadan doonaa waxa weeyaan waxa laga saari doonaa pending ama waa laga xiri doonaa restriction marka in aad iskaga ilaaliso waxaan lahayn intaas kadib waxa weeyaan aad copyright-kana waad iska ilaalinaysaa noocu yahay music background-ka ugu yar waa very sensitive marka Facebook la joogo waana sababtay dad badan xaggan u soo geli waayeen si ay uga shaqeystaan inta marka dhamaystirto oo monetize-ga lagu aqbalo waxaa jira wadamo fara badan oo loo ogolaan Soomaaliya imkaan joogo oo for example kala Hargeysa jooga marka Somaliland Soomaaliya East Africa badankeedo dhan waa uneligible loomaba ogolaba in waxa weeyaan illegal ma aha lagama shaqeysan karayo waxa jira processyo kala loo maro si loogu xidho adigoo iska dhigay in la joogto wadamada illegal-ka sida United Kingdom oo kale ama USA oo kale ama wadamada la midka ah waxay ku xiran tahay adiga iyo dadaalkaaga sidaad u shaqeysato ayaan baad u helaysaa laakiin waxaan ku leeyahay waxaad ka shaqeysan kartaa halkan wax ka badan $1,000 bishiiba bishii kaliya maxaan leeyahay isbuuciiba waxaad shaqeysan kartaa wax ka badan $1,000 kaliya waxay ku xiran tahay depends on your hard work sidaad u shaqeyso sidaad u dadaasho creativity-gaaga waxa weeyaan shaqada adiga aad qabato ayuunba xaggan waxa weeyaan ay qiimeynaysaa dhaqaalahana saas oo kale ayuu waxa weeyaan oo aad ku helaysaa hal talo baan dhalinyarta uga sii tagi lahaa waxa weeyaan ha focus gareynin sida dhaqaale uu ku heli lahayd taas waxay keenaysaa marka qaarkood waxyaabaha dhalinyartu inta badan ay sameeyaan ee waxa weeyaan YouTubers ka badan in marka ay focus gareyn dhaqaale sameeyaan in waxyaabo badan oo dhaqanka iyo diintaba ka baxsan ay sameeyaan laakiin waxaad focus gareysaa sidii wax faa'iido leh aad bulshada uga tagaleed for example maanta haddaad dhimato adigoo YouTuber ama Facebooker ama yani content creator in على الأقل 10 فيديو أما 2 فيديو تسميسين نقطة مدة وحكة بدري كرا لكن إن أنا نقول مدة كدبات سو جالسين كرا هاي رئيسنا هالكن وماشى جيدو لن يمكن لقى معمو وحن ديار وهاينا ندير عاويو وحكست دي بهانتين إن حنا كسواد حرينو إن شاء الله عم فيسبوك إنبوكسكا سو كلا إنستغرام كي عدي أدي جالس حريري كرتان سو كلا أنا لينكي جا تليجرام كي حنا صوري تونا tan aan ugu talagalay in content creators-ka dadka rabo in aad u kala faa'iideysano xagan aan aad uga wada xiriir karno waa isku family ay noqono aad iyo dad mahadsantihiin insha Allah waxaan leeyahay waxay noo balan 2023 inaad intiina jecel waxa aad jeceshihiin idin qabsanto laakiin maanta kadib waa inaad ogaato in Facebook-ga dhaqaale laga sameeyo sidoo kale dhaqaale fara badan oo aad kaga madax banaanaan karto noloshaada oo dhan aad heli karto